siinaya. Markana wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Puntland ay wadaan dadaalo ay ugu kala dabqaadayaan ciidamada dowladda iyo ciidamada la dagaalama argixisada ee BSF loo soo gaabiyo. xaaladda magaalada ayaa degan, hase yeeshee waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaaladaasi ku qulqulayay ciidamo badan oo ka tirsan Puntland, walow intooda badan la dejiyey bannaanka magaalada. odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inay ku rajo weyn yihiin inay si nabada ku soo dhammeeyaan khilaafka taagan, waxaanay carabka ku adkeeyeen inaanay aqbali doonin in magaalada lagu dagaalamo. haddaba goordhoweed ayaan khadka taleefonka ee magaaladaasi waxaan kula xiriirnay wariye maxamed xasan dhalo oo aan weydiiyey bal waxa soconaya. xagayaro xaaladda Boosaaso maanta way degan tahay, si caadiya baa nolosha magaalada iyo dadku u socdaan. waxaa socota waan lagu xalinayo khilaafkii muddada taagnaa oo toddobaad maanta laga joogo ee labada dhinacba ka dhashay xilka qaadistii madaxweynuhu sameeyey. waxaa jira in loo kala dab qaadayo labadii dhinac oo ilaa saaka hawshaasi lagu jiray, ayna u muuqato in maanta war laga soo saari doono gelinka dambe halka arrintaasi ay caga dhigato. yaa u kala dabqaadaya marka oo labada dhinac ku dhex jira? waxaa wada isimada Puntland oo arrintaasi isu taagay. waa moodo in maanta dhaqdhaqaaqii ugu badnaa ay sameeyeen oo iyaga dhexdooda ay kulama samaynayeen, ayna la xiriirayeen darfaha kaleeto si arrinta tan loo xaliyo oo looga baaqsado in Boosaaso xabadi ka dhacdo. waxaan marka ay sheegeen in ilaa maanta arrintaasi ay wadayaan ilaa gelinka dambe oo ay ku rajo yihiin inay soo gabagabowdo ayna ku dhammaato arrintaasi silmiya oo nabada. haddaad la hadashay marka ma kuu sheegeen halkay wax u marayaan iyo dhinacyada waxay u sheegeen? beldaaje maxamed beldaaje ismaaciil ayaan la xiriiray nus saac ka hor oo ii sheegay inuu markaa kulan ka soo baxay mid kalena uu gelayo oo ilaa 5 galabnimo ay soconayaan kulamadaasi. waxa uu sheegay rajo fiican inay jirto oo ay meel wanaagsan wax u marayaan oo ay ku rajo yihiin in isimada warkaada loo hoggaansamo oo ay meel fiican wax dhigaan. wuxuuna beldaaje ii sheegay in ilaa 5 galabnimo ay gaarayso shirarka ay wadaan iyo telefoonada ay madaxda kala duwan kula xiriirayaan. ujeedkuna uu yahay in laga baaqsado in ciidamo ay Boosaaso dhexdeeda ku dagaalamaan oo nabadgeliyo wax walba ku dhamaadaan. isimada waxay ka cararayaan in magaalada dhexdeeda ay ciidamada faraha badan ay jooga ku dagaalamaan. wararkan soo gaareen waxay sheegayaan in ciidamo badan ay halka ilaa xalay soo gaarayeen. marka bal ka waran labada dhinac. agayrow taaka waxaan soo marmaray magaalada ilaa maantana magaalada dhexdeeda ayaan marayay. ciidamada xeryahoodii iyo goobahoodii wax ku sugan maaha, dhufaysiyo iminka qodan oo la isu hor fadhiyo iyo dad dhulka iskula jira ma aanu soo arag. laakiin arrintu waxay u badan tahay in ay maanta soo qaboobayso oo ciidamadii daraawiishta ahaa ee shalay magaalada yimi banaanka magaalada ayay degeen. ciidamo kaleeto oo goobo ciidamo joogeen oo ciidamo siyaada ah la geeyey ilaa xalay awal diile laga dareemayay, laakiin maanta xaaladdu ay nabad ka muuqato way jireen. marka dhaqdhaqaaqyo culus oo ciidan maanta Boosaaso kama jiraan, way qabowdahay xaaladdu waxayna u socotaa sidii caadiga ahayd. dadka magaalada ka waran mar haddii isimadii haatan ay hawsha ku jiraan dareenkoodu waa sidee? waxaa moodaa rajadu inay xalay markii hore cidhiidhi gashay, laakiin maanta ay soo hagaagtay. isimada ruuxoodu ay maanta isu taageen arrin muddo ay socotayba maanta ay si aada isugu taageen oo isu hawleen. marka dadku maanta rajay sheegayaan oo waxay leeyihiin mar haddii odayaasha ay arrintan u kacaan way iska soo idlaanaysaa oo inta badan talada odayaasha waa loo hoggaansamaa marka ay soo saaraan go'aamo. marka dadku rajada ugu weyn oo ay qabaan waxa weeye in go'aanka odayaasha ee loo hoggaansami doono, laakiin muxuu noqon doonaa lama garanayo. kaasi waxa waa maxamed xasan dhalo oo isagoo Boosaaso jooga khadka taleefonka igu warramayay. markana Facebooka